الله naxariistay Hodon Naaleeye ayaa sanadii 1976 ku dhalatay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Hodon oo ay la dhasheen 4 wiil iyo 7 gabdhood ayaa iyada iyo qoyskeeda waxaa sanadii 1984 ay u haajireen dalka Canada halkaasi oo maangeli ay ka heleen. Allah naxariistay Hodon Naaleeye ayaana xilligii ay tagaysay dalka Canada jirtay 6 sano. Hodon Allah naxariistay waxay ahayd hooyo haysata 2 caruur ah. Hodon ayaa ka baxday jaamacad la yiraahdo Windsor iyadoo heerka koowaad ee jaamacadda ku qaadatay farshaxanka iyo isgaarsiinta. Hodon ayaana sidoo kale shahaado kale ka qaadatay college la yiraahdo Snake College iyadoo baratay habka tabinta warbaahinta. Xirfadeeda xagga shaqada haddii aan eegno, Hodon ayaa lahayd waayo aragnimo 13 sano oo xagga shaqada ah, gaar ahaan dhinacyada maareynta macaamilka, iibinta iyo wax soo saarka raadiyaha iyo telefishinka. Hodon Naaleeye ayaa sidoo kale barnaamij soo saar ka noqotay telefishinada dhowr oo ay ka mid yihiin American Idol iyo Sida TV oo ku yaala dalka Canada. Allah naxariistay Hodon Naaleeye ayaa la soo shaqeysay shirkado dhowr oo caalami ah iyadoo kala shaqeynaysay dhanka suuqgeynta iyo sidii shirkadahaasi alaabahooda si online ay ugu soo bandhigi lahaayeen. Hodon Naaleeye ayaa mar loo magacaabay madaxweyne ku-xigeenka shirkadda iibinta iyo barnaamijyada horumarinta ganacsiga ee dalka Canada. Shirkaddan oo ahayd mid caalami ayaa soo saareysay muuqaallo xagga tiknoolajiyada oo lagu horumarinayo wax soo saarka shirkadaha ganacsi ee dalkaasi. Okay, so jaamacad waan ka soo baxay alxamdulillah beri hore ma sheegayo taariikhda intaas. But waxaan bartay communication studies. And then waxaan ka shaqeyn jiray radio advertising for 15 years, long time. Wow. I have a corporate background. I do a lot of marketing by mentoring. Then I went back to school. Markaan caruur dhalay baan year time qaatay because caruurta hooyo u baahan yihiin guriga in yar la joogta. Sax maaha? Yeah. So then jaamacadaan ku noqday waxaan bartay TV-ga saan ka soo broadcast journalism. Markaan dhameeyayna YouTube kan bilaabay. Waxaan ahay hooyo, 2 caruur baan haystaa, 2 wiil, 2 future leaders baan korinayaa insha Allah. Allah naxariistay Hodon Naaleeye ayaa sanadii 2014 waxay bilowday channel YouTube oo la yiraahdo Integration, kaasi oo ah channelkii ugu horeeyay noociisa oo ku baxa afka Ingiriiska isla markaasna lagu soo bandhigo waxyaabaha horumarka leh ee Soomaaliya ka jira. Hodon Naaleeye ayaana mar ka hadashay sababta ay u aasaasay telefishinka Integration TV waxa waaye telefishinkii ugu horeeyay oo ku soo baxa af Ingiriiska oo Soomaalida dhan meel ay joogaan ay dhageysan karaan, daawan karaan. Wuxuu ku saabsan yahay dhalinyarada dhan oo ku nool qurbo oo ku soo kortay wadamo kale inay u fahmaan ay bartaan af Soomaaliga, bartaan dhulkoodii, ogaadaan dadkoodii. So intaasaan ku bilownay Integration TV-ga. Hodon Naaleeye ayaa markii ay samaysay telefishinkaasi waxa ay bilowday inay socdaalo kala duwan ay ku kala bixiso gobolada dalka oo dhan si ay u soo bandhigto gobol walba iyo waxyaabaha uu caanka ku yahay. Good morning from Berbera Integration TV. Guys, welcome to Bur'o, University of Bur'o. I'm so excited. This is my first time coming to this great city. I can't believe that. Allah naxariistay Hodon Naaleeye markii ay samaysay TV-ga la yiraahdo Integration waxa dadka Soomaalida ay aad ku taxan baraha bulshada ay ku soo baraarugeen shakhsiyadda Hodon Naaleeye halka qaar kalena ay kula kulmeen goobaha bulshada isugu timaado mararka qaar ay booqan jirtay. Allah naxariistay Hodon Naaleeye ayaa mar ka hadashay waxyaabaha lagu xasuusan doono haddii uu moodka haleelo. And wallahi aniga waxaan iska hay qof bugaagtan jecelahay inaan akhristo inta badan, waxaan dhageystaa podcast badan. Interest waxaan ku ahay noloshayda sidaan u horumariyo. Waxaan ka wadaa maaha lacag iyo waxaas, waxaan ka wadaa xaqa diinta, the other side, because meeshan waa laga tegayaa. Wax badan baan jecelahay berigii hore inaan wareysi dad badan ka qaado, markaa diinta iyo wax badan fahmo